waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay bay soo tarayay cabashada ka imanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan degmada Boorama. maantana waa maalin kale dhalinyarada ku xoogsata gaadiidka yaryar ee bajaaja ayaa maanta waxay sameeyeen shaqo joojin, waxaana ay shaqo joojintooda ay ku sababeeyeen oo ay cabasho xoogan ay ka muujiyeen cashuuro dheeriya oo ay sheegeen inuu ku soo kordhisay maamulka dowladda hoose magaalada Boorama. sidoo kalena waxaa xusud mudan in gebi ahaanba uu hakad ku yimid isku socodka xaafadaha kala duwan ee u kala socdaali jirtay gaadiidka yar ee bajaaja. marar kala duwan aanu isku daynay inaan wax ka weydiino maamulka dowladda hoose magaalada Boorama cashuurahan ay ka cabanayaan gaadiidlayaasha bajaaja, balse wax jawaab kama aysan bixin arrintani. intaasi kadib waxaa dhankooda si hufan noola hadlay oo aanu wax ka weydiinay gaadiidlayaasha bajaajlayaasha ee maanta sameeyay shaqo joojinta, waxaana dhammaantood ay ka midaysnaayeen cabashada ay ka qabaan maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi oo ay ku eedeeyeen inuu indhaha ka lalinayo xaqiiqooyinka jira. waa sida hadalka u dhigeen ka fariintan maayirka aan u diray waxa weeyaan waa 100 kun anagu ma awoodno ee arintaas dib ugu noqo oo wax kala la dhig 2 kunna ee maanuuba la naga qaadaya baa anaga nagu ahayd ba hawl war waxa weeyaan ama sida gawaarida wadamarista la naga qaaday 6 biloodba mar laba la naga qaala wadamarista taan la noogu daayo yaa ima wadamarista la naga daayo maantii 2 kun aan bixino dan maayir waxa noogu tahay inaad bulshadaadan aad eegto weeyaan ee nooguma tiid inaad nacunto diyan hay dhalinyarta bajaajleed ee gobolka Awdal ma hayno wax dhaafsan inta oo ah dayactir ha ahaato godad ha ahaato anaka dayactirna godadka anaka buuxina oo caro ku shubna inaan inaga kamid dhalinyarta oo buuxiye godadka marka wixii aanu garanan siinaa 3 kun 2 kun waxaanu siinaa maayirka magaaladu maalinta wax naga qaadayo nama soo wargeliyo iskaashato gacantiisa ku sameystay yaa jirta oo isagu u adeegsado dhibta u adeegsado dhalinyarta shacabka. waxaan sheegaynaa mudane Salebaan wuxuu yimid iyadoo kuna laga qaado kuma nagu soo biiriyay kamaanaan diidin oo ka qaadanay sanadkii hore waxa laga qaaday 35 kun maanta wuxuu ka dhigay 100 kun oo lacag 100 kun ma awoodnadii halkan ka keenna annagu uma shaqayno yoomkii waxaana yoom shaqayna adina laga raadiyo isagu iska daali. marka waxaan u sheegaynaa inay sharafta shacabka ilaaliyaan waxay dawlad ku yihiin waa shacabka aqallaan laga dhisaabano malaynaya kuwa muraayadu maqan yihiin ya waayo wadada wada god mar walba biinkan ka bedelaan bajaaj bishii 3 biin baan bedelaa oo $30 kaliya igu waan beelay waayo wadadiga hagaajin lahayd hadii wax loogu qabay degmada wada hagaagsan ma jirto. marka waxaan u sheegaynaa in dibtana laga daayo usoo birtay iyagu qorshaan noo sheegin inay amar yiraahdeen lacag bixiye 100 kun xukuumadan maayirkii hore maydhanay wuxuu naga qaadi jiray 35 kun Salebaan markuu yimid wuxuu leeyahay 100 kun bixiya marka taas waan ka cabanaynaa mana awoodo intaas oo dadii waxay hal qof iyo hal mowqif wada leeyihiin mabdooguna waa hal meel. marka intaas waxaan wada soconaa inuu maayirku dhibaatada shacabka ku hayay bajaajleyda aan naga daayo maanta laakiin nin walba uu ogiyo faroodu dhaxay qalisan yahay. waxaan leeyahay waa maayirkii burburinta, waa maayirkii duminta, waa maayirkii shacab kicinta. marka waxaan leenahay maayirku ha joojiyo dhibaatada wado haduu wadi waayna waanu la wadi waa ninkii caanay ka daadanayaan wala arki doonaa waanu la wadi maanta way socon birino way socon saasana soconaysa ilaa intuu ma qofka yeelanayno arka mana joojina ku shilin naga qaaday maayir Salebaan 2 kun buu ka dhigay talabaad xoog dawladda waas ay wadaa jirtaan ninka ma xoog weyna meesha waa qabiil baa lagu jooga nin walbana qabiil buu yahay maanta hadaan maanta la xoogo 100 magaalada ka soo qabanaya bajaaj laakiin qabiil male waa dad wada shaqeysta waa dad cid walba raacdo wax qabiil bajaaj kuma shaqeyso laakiin hadii laga dawaa nin walba reer buu noqonay. waxaan halkaan u yar fariin u dirayaa dawladda Soomaaliland oo hogaamiyo madaxweyne Muuse Bixi ayaa fariin toos u diraya waxa leeyahay madaxweyne dulmigan lagu hayo hal laga soo gaaro wadanka dulmigan lagu hayo hal laga soo gaaro madaxweyne ku leeyahay maayirka in la xisaabtamo oo waxa weeyaan waxa loo qabtaan doonayna anagu cashuurta ma diidan anagu laakiin waxa loo qabtaan leena wixii laga qaaday cashuur dawladda laga qaado hal laga qaado laakiin waxa loo qabto godadkii baa horta yaa nakeeday
shakaladii aan bedelnaa bishii mar baan bedelnaa shakaladii bedelnaa shakalka $30 baa siiya halka dib kaliyii baan ku cunay dhalinyarta waa dhalinyartii waddanka weeyaan si kastaba ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyeyba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada boorama ayaa waxay cabasho xooggan ay ka muujinayeen maamulka dowladda hoose magaalada boorama waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbayaha telefishanka caalamiga Star TV boorama.